mashruucan dib u habeynta kaabayaasha beeraha iyo waraabka deegaanada ay saameysay abaarta ee gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ayaa noqonaya wajiga koowaad oo lagu gargaarayo dadka beeraleyda ay saameysay abaarta waxaana ka faa'iideystay in ka badan 350 beeraley ah waxa gargaarka bixisay hay'adda gargaarka arrimaha bini'aadanimada ee Boqor Salmaan oo aad ugu shaqeysa dib u dhiska kaabayaasha beeraha iyo kaalmeynta beeraleyda Soomaaliyeed mashruucan ayaa waxa gudaha dalka ka fulisay ururka isbahaysiga islaamka ee marka magaceeda loo soo gaabay loo yaqaano OIC ayagoo wakiilka hay'adda gargaarka arrimaha bini'aadanimada ee Boqor Salmaan waxaana mashruucan wajigiisa koowaad laga fuliyay deegaanada iyo tuulooyinka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe sida Jowhar Magay Bareere Balcad Xawaadley Mareerey Mugodheer iyo tuulooyin kale ku dhawaad 200 hektar ayaa loo falay beeraleyda deegaanka waxaana dib loogu habeeyay kanaalada wabiga iyo habka waraabka sidoo kale qayb ka mid ah dadka ayaa waxa loo qeybiyay agabyo ay u baahnayeen sida kushiino abuurka agabka beeraha iyo matooro ay ku waraabsadaan beerahooda qaar ka mid ah dadka beeraleyda ka faa'iideystay wajiga koowaad ee mashruucan dib u habeynta kaabayaasha beeraha iyo waraabka ayaa kaga mahadceliyay gurmadka ay soo gaarsiiyeen hay'adda gargaarka arrimaha bini'aadanimada ee Boqor Salmaan Sacuudi Carabiya oo ka timid Ilaahay ajir iyo xasanaad Allah ka siiyo aad iyo aad ugu mahadcelini waxa kale ay noo sameeyeen 5 kili waa noo qodeen kiliga aniga aan saaranahay oo beertayga saarantahay magaciisa waxa la yiraahdaa kilkile waxaa noo qoday 4 kili 5 kili oo noo keenay matooro hadda saacan waxaan taaganahay beertayga oo laga 5 etar ayaan la 1 etar xalay loo qoday marka alxamdulillah khayr ayaan sheegaa waa idinku mahadcelini waa noo la sii waxaa noo keenay abuur waa noo keenay oo galey abuur ayaa noo keenay ma sha Allah abuur galey digir sisin ayaa noo keenay daawo yuuri ayaa noo keenay oo 3 nooc ah oo bacrimin ah ma sha Allah iyada way mahadsan tahay ilaahay ayaa mahad iska leh bacdeen waxa kale noo keentay ay noo dixkirtay kanaal oo bibihiyo waxiis baritooyada noo dixkirtay waxa kale noo qabatay oo la kala ka sii fiican waxaan ka bilaynaa hadan wax ka sii fiican noo suubisa alxamdulillah hal oo bartooy iyo 4 oo alxamdulillah korshood oo bartooy la socoto alxamdulillah waanu habeeyeen hay'adaha khayr ilaasi shirk taro kale nama soo marin wali ka waaga ma arkay hay'adaan oo kale ilaahay aanu keenay nasiibka inaan ku helnay hadda waa mahdiyayna ilaaha mahad leh intaan oo inoo qabteegne mashruucan ayaa mid diiradda lagu saarayay sidii dadka deegaanka gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose ay ugu faa'iideysan lahaayeen kheyraadka lagu manaystay si ay ugu badbaadaan abaaraha ku soo noqda gudaha dalka waxaana fulinta mashruucan lahaa shirkadda Taas Interpret oo takhasuskeedu yahay dhoofinta mooska iyo horumarinta beeraha Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho